kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni faaqidaada wararka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allah awoodda la ogolaado anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki. waxaanu warbixin idinka diyaarinay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid Solteko oo ka hadlay mudaharaadka uu qaban qaabinayo xisbiga mucaaridka ah ee wadani, isagoo oo weliba si kulul uga hadlay inaan magaalada caasimadda ee Hargeysa aan laga dhex samaynin rabshado, isla markaasina aan loo baahnayn in markaasi khalkhal la geliyo ammaanka dalka. waxa uu farta ku fiiqay waxyaabaha uu markaasi u wado Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. waa sida uu hadalka u dhigay, hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed. waxaana soo gaadhay fariin ah guddoomiyaha xisbiga wadani guddoomiye Cabdiraxmaan inuu ku dhawaaqay in berritooda taageerayaashiisa Maroodijo isu soo baxaan. annagoo qadarin u hayna waxaanu leenahay magaalada Hargeysa waa magaalo ganacsi, waa magaalo dahabkeeda iyo lacagteeduba suuqa yaalaan, waa magaalo populationkeeda iyo ganacsigeedu xoog u socdo. uma baahnaa isu soo bax iyo dhib. ciddii doonaysa inay samayso mudaharaad waddo sharci baa jirta oo u marto wixii waxaa ka sokeeya, annagoo ilaalinaynaa caasimadda iyo ammaanka dadka iyo socodka iyo nolosha dadka ee socota ee day by day ee ummaddeena danyartii ayna qaadi karin. waxaanu leenahay wixii waxaa ka sokon maraa waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya iyo dhibaatada halkaa ka dhacda guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan. waxaan leenahay guddoomiye ka noqo go-aanka aad ku dhawaaqday. Hargeysa uma baahna rabshad, mana qaadi karto. wixii sharciga ka baxsanna wixii mas-uuliyad ka yimaada guddoomiyaha qaadi doona. aad baa umahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi.